ayaa xilka wasaaradda waxbarashada ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa buugaagta manhajka waxbarashada cusub waxa uu gaarsiiyay iskuul kamid ah iskuulada ay dhigtaan dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku yaala degmadan Tanbaydhabo. Cabdinaasir Musharraf ayaa faahfaahinta warkan eegaya. wasiir maxamed abuukar abdi oo ah wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed ahna siixaya xilka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed ayaa xilxeyntiisa wasaaradda waxbarashada ku soo gabagabeeyay qaybinta agabka waxbarasho ee yaala keedka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed waxaana muddooyinkii u dambeeyay uu ku guda jiray qaybinta buugaagta manhajka waxbarashada ee dowladda federaalka. wasiir maxamed abuukar abdi oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed ayaa booqday iskuulka Mustaqbal oo ah hoyga waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba sida dhagoolayaasha, indhoolayaasha iyo kuwo la mid ah. waxaana iskuulkan oo wasaaraddu ay gacan weyn ka geysatay asaaskiisa ay hadda gaarsiisay buugaagta maadooyinka kala duwan oo ah manhajkii ay soo saartay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka. maamulka iskuulkan ayaa wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed ugu mahadnaqay gacantii ay ka geysteen in waxbarasho loo helo dadka baahiyaha gaarka ah qaba. iskuulkan si simbogdin 2017 bilisida hada la furay waagi la furay iyo heerka hatu isroog isuusa ka bilaawday meel ay rekor geeyka boqol ida horumar lagu diiriyo la rekor markii dhinac walbarashada iyo qaabka iyo system kor aan dalku yaalay oo injarna iskuulna oo aan yaalna dalkan i heerka geeyka lagu diiri ma sha Allah wala rekor sim baragahaytan waagi la furay 2017 bilisida 13 arday iyo ka furnay iskuulkan hatana 135 arday dhikadahayd maalin ilaahay gili arday usba kooyahayd waa isimba aragahaytan heerka walbarashada iyo geeyka alxamdulillah iyo marahaan kulay aragahaytan wali waa ilaahay ka mahadsan guutaan maamulka iskuulka iyo ka mahadsan gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo boqol ka mahadsan may weeli haddii wasaaradda waxbarasho nin la garab wada lahayn shiriyadana muudafan isimba ka sokortaan culeysada meelan isku yaala si iskuulka oo kira baawrshi oo kira macallimiintiisa oo dhaqaalaneen hayn dareema kortaan laakiin ma ilaahay ma hadii saytay garab aan helnay garabkaas oo number 2 number 2 number 3 ku ata wasaaradda waxbarashada ilaahay ka mahadsan ka bacdan wasaaradda waxbarashada ka mahadsan hortaas tan seen sheegay tan lamaad culeysadii wali isku teegayin si dareema haytan araga haytan ardada taqeeb kumid ah iskuulka kiraada binaanka fadhiid araga haytan alxamdulillah walbola la ka deeray waqtigii on hana maray i heerka i waqtiguna hata geeka roog hobna nisfiiri boqol ma ah koro laakiin boqolkiiba 70 oo kala baahidii walaha ku dhawaaday kor may weeli ardadii iskuula heli saacadoon lagu bilaaw wareejilay waleer dangeen ku dhimano waleer lay dhamaan ma ahayn iskuula la dhisahay alxamdulillah taasna wasaaraddan ay kala shaqeeytay ka mahasanta hay'adii oo yeelaneen dhisahay toona ka mahasanta. wasiir maxamed abuukar abdi ayaa muujiyay farxad ah kaalintii uu ka geystay aasaaska waxbarashada danyarta muddadii uu ahaa wasiirka waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed wuxuuna ballan qaaday in xilli kasta uu gacan ka geysan doono u adeegida bulshada guud ahaan Koonfur Galbeed gaar ahaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba. waygeeka farxad weyn aha mar lamaad mar saddexaad dhowr jeerna ana kooy iskuulka Mustaqbal oo meelahay in badan in ku bedelan mise in ku duun iskuulada ka yaala Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo sababtu isu in ku bedelayaan oo bulshada ma aaminsana dadka in ka liidadi oo hay in la caawiyo in meelahay roogan walka barada hayaan markan kooreeyt ilaahay ka mahadnagay marka lamaad ma eedan ka mahadnagay maamulka iskuulkan oo aan ka tilmaamo kordad haliyayaal geesiyaal wal bulshada Koonfur Galbeed taariikhda intii hajartii iska daywaytay in iska dayaan bulshada dadka in ka tabar dornaay dad dhagoole hindhoole curyaamiin aniyo wal barang may leeyahay dhiiridaas ani shaleediyo go'aankaas qaadayaan iyago dawlad an ka dhiirigeliyaan hay'adan ka dhiirigeliyaan markan way leena dad may leetina may leeyahay maamulada iskuulka Habeebe iyo Cali oo maamulka hoggaanka way leeyahay dad oo haliyayaal wal wanaagsan oo wada bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan Koonfur Galbeed gaar ahaan Baydhabo may leeyahay iidan ma santiin ma inka muddo hata hal sano wal ku hor iskuulka maalintii aan kooyay mayba xasuusaday isugu may leeyahay inta baalaysiin dhalinyaro oo dadkan tawalka baradahay oo iska dhax jiraan gabra
iyo kuri dadweyn hata birsho ka dhex jiraan oo inta iidan tabaalaysan alxamdulillah iyago meelili fadaylan deer geeka meelaha iidanka faraxsana aniyo ardaydii geeka aan haangana dhex fidhiyin uniform haysadaan wal allaala walila fada qoro korana akhriyayaan way farxad dadka ka dhiirideeni dadkan hadala korna anigo wal baran geeka sidii caadiga English baradahayaan Soomaali baradahayaan hisaab baradahayaan farxad weyn aniga taas bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed ma in sheegay ani aan baahanyi iskuulkan xasuus gaaray taariikh gaaray English ana mar walba roogmay la raay iskuulkan oo ka dhax jira may weeli dadkan anta hoogale ofisida kooyahay xaafado dadanka kooyo mas'uuliyiinta meel walba dad la surin wal caawiyahay laakiin dadkan dad awooda ma ofisda ma kooy koran ma leeyahay xaafadada dad ma la kooy koran dadka mas'uuliyiinta koonfur galbeed mas'uuliyiinta keen dawladda gaar ahaan may baan ka baaqay dadkan ani si il gaar la ka fiiri il naxariis la ka fiiri may ba xaqiiqaha ana dhahrogay maamulkan xogtis badan ku hayaan oga ani walaayilanka talagalay geekan haysana wala kale oo may leeyahay inana dadka xasuusi fado maya ciyaalkan mise dadkan tawalka barday inaha ku jeedan qoysadka an kaliidada magaaladan barakacayaasha ku jiraan ilaahay amarshay qudurada ilaahay ka dhigay dadkan kaliido ku jeedan ma edad awooda hataa antii onoga may leeyahay bajaaj raabta saaran inta sheena kor ma edad awooda hadii fiil isku dhibay leeyahay lan kun shilin awooda markan geeka yogo kun shilin lagu qaadan ani may leeyahay lacag laan wala ka barahay wali xaafad iyo baawar lan ka dirahayo sheendadahayan dad is abaabuli is xilqaami wali lama shakhsi wala ka sameeyayaan may leeyahay ku eedan bulshada iyo maamulka koonfur galbeed may codsaday in badan ku codsaday bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ani koonfur galbeed dan iskuulkin koreyti taariikhda noocan ee la ka frontiisay aan baahanyi bulshada meel walba roogda ogow may leeyahay waxyaabo oo tan munaasabsadan in hayna dhaqaale badan ka biyaanan way ku codsadaan ummada guud ahaan aniyo dadkan is caawi kornan ilaahay may leeyahay in is dadka aniyo nisna xariistan is caawanan walanka wanaagsan saawd ani geeka dadka shirkadaha dadka dhaqaalaha ilaahay si dadka dibadaha ka nool ani iskuulkan dadkan walka baradahay ilgaare ka hayaan ku codsadaan ugu dambeyntii wafdigaasi haya xilka wasiirka waxbarashada koonfur galbeed ayaa booqday xarun cusub oo loo dhisayo iskuulka dhagooliyaasha Baydhabo oo wasaaraddu ay gacan ka geysanayso Cabdinaasir Musharraf JTV Baydhabo.